بسم الله الرحمن الرحيم. جو ما صنت هذه هذا ما صنت هاي deegaan ka jira dhinaca koonfurta masaafo 50 kiiloomitir degmada Xarardheere ayaa nimanka argagixisada qawaarijtaahu waxay ka dejinayeen waxyaabo ay habeen shacbigan Soomaaliyeed inay ku dhibaateeyaan sida caadada u ahaydba halka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka ku sugan Xarardheere runtii waxay si horeba ula socdeen xogaha iyo muxuu ahaayay sheegay dhagaraha cadawga ay halka ka maleegayaan xalay ayay ciidamadu muxuu ahaayay sheegay howlgal qorsheysnay ku qaadeen halka waqtigii argagixisadu ay halka ay falalka ay umada ku dhibaateynayeen ay ka fulinayeen meesha runtii howlgal guuleystay ka dhacay argagixisada halka gaari xamuul ah weynaa oo ay waxyaabaha qarxa ay ugu rarnaayeen halkaas ayaa lagu gubay maleeshiyaad ilaa waxa lagu dilay halka oo ay kamid yihiin maleeshiyaad ajaaniba sidoo kalena waxa looga qabtay gaadiid kale oo ay wateen iyo maleeshiyaad kale oo nolosha lagu qabtay marka howlgalkaas xalay waqti dhexe ayuu halka ka dhacay waxaana runtii howlgal aad iyo aad runtii aan loo abaabulay xogihiisana la socday marka howlgalkaas guuleystay halka ka dhacay maxay ahaayeen marka maleeshiyada halkaas lagu laayay iyo gaadiidka xamuulka ciidanku ay qarxiyeen maxay ahaayeen gaadiidka sidaan ku sheegaba gaadiid xamuula oo waxyaabo ay dabcan ay ku keeneen dooman ay ku keeneen ay ku soo qaadeen oo ay rabeen inay ku dhibaateeyaan dadka waxyaabahan qarxa sidii baaruudahan TNT-da iyo waxyaabaha la midka ah ayay ku rareen oo ku jirta bahale agab kala duwan oo ay ku soo shubeen marka xogaha ayaa lala socday gaadiidkaas marka xamuulka ahaa gaari weyn oo PG oo ay ku sideen alaabtaasna waa la gubay maleeshiyaad la socday oo sidaas oo kale qaybuna ay saarneed gaadiidka ay ku sideen waxyaabaha qarxa qaybuna ay gaadiidka la saarneedna halka ayaa lagu laayay sidaan ku sheegana waxa jira maleeshiyaad kale oo nolosha lagu qabtay oo kamid ah maleeshiyaadka gaadiidka saarnaa waayahay marka maxaa kale oo qasaaraha oo halkaasi ka dhashay marka laga reebo maleeshiyaadka qawaarijta ee la laayay maadaama gaari xamuul ah la qarxiyay qaraxaasina uu saameyn kale uu yeelan karo bal ka waran maya anaga dhankeena haba yaraato wax ciidamadeenu diyaari u foojignaayeen qarxuna wuxuu ahaa howlgalkuna wuxuu ahaa howlgal dabcan aan xogihiisa si fiican marka horeba aan muxuu ahaayay sheegay dhagabta argagixisadu aan xogahooda aan aad ula soconay sidaas darteed ciidamada oo tacadir dheeriya ku jiray wax qasaara oo dhankeena ka soo gaar haba yaraatee ma jirto dhinaca dadka deegaanka iyo xoolihii meesha dadka deegaankana waxba soo ma gaarin meesha howlgalku ka dhacay waxay ahayd meel soon awnan dad deegaan marka aanu ku sugnayn oo soona maxaa loogu talagalay in cadawga loo galo ayay aheeday marka wax dadka deegaanka soo gaaray oo qasaara sidaas oo kale ma jirto